waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka fiid wanaagsan oo aad ka daawataan janalka qari jiqood waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Saciid Gadaf Galeyr qodobada warka ugu door karoona waxa kamid ah kulankii golaha baarlamaanka oo baaqday warbixin ayaynu idinkaga haynaa isku socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka Muqdisho oo dib loo furay iyo Ruushka oo masaafuriyi diblomaasiyiin dheeraad ah u dhashay boqortooyada Ingiriiska qodobadaas iyo qodobo kale aynu ku soo qaadan doonaa wararka fiid wanaagsan haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib loo dhigay kadib markii uu soo farageliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya khilaafka u dhaxeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa warbixintaasi waxa inoo haya wariye Avocado Maxamed Axmed gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa faahfaahin ka bixiyay sababihii loo baajiyay kulankii baarlamaanka ee maanta loo ballansanaa gudoomiyaha oo goordhow warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankii maanta loo baajiyay codsi ka yimid madaxweynaha oo xalay saqdi dhexe ilaa iyo waa berigii kulan la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliyeed iyo gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacbiga iyo xildhibaanadaba in aniga iyo labadayda ku-xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagneed golaha shacabka kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo aan si arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in arrinta sida xikmadda leh uu u soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi oo madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhaqmo iyo arrimo aan awsamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in aan wada hadalno oo aan wada heshiino in misla fariiso la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta la isku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna la isu sameeyo si arrimaha dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado alxamdulillah hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankan in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkan nala qabtaan oo markaa aan meeshii habboon aan geyno walxamdulillah wakafa allahu lmu'miniina alqitaal يعني واحد دجال دبعته مجرته إله بمحدا إسكاله أنت أصلاً رأينا إذا لو داوي إن مدحونا وسوجي دي حكين تاسي أنا كان عنك أقول عن الرسمي أهان وحن آد مركل أبو مهد علينا يا أي أغل كيسرة وأرنتن ونارتا كسوقاتي قيب وين أو صوب بسلي إنك سو مركي دم بحد مرتا أي أو قيب وين كسوقاتي وأرنتن سو جارسي ميل وناكسن حدنا مدحوينها ومرتا سيفي عن لوغا اوغلاداي aad baad mahadsantihiin ballanteen waxa way anaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka waa muhiim baarlamaanka waxa weeyaan guddiga dawladda weeyaan yaan lagu dheerin marka min fadlakum ihsaanakum arrintaas lagu ayida wixii ka dambeeyna faahfaahinteedan madaxweynaha ka sugayna annagana waa idin soo gaarsiin doonaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
gudoomiye Jawaari ayaa sheegay in wixii khilaaf ah jira xal laga gaaro loona turo shacabka isla markaana midnimada iyo wadajirka baarlamaanka lagu dadaalo waxaana intaasi ku daray in dib laga soo sheegi doono wixii kale ee dhiman si loo helo xasilooni siyaasadeed waxaana xildhibaanada ugu baaqay inay aqbalaan soo jeedinta madaxweynaha lana ilaaliyo badqabka iyo wadajirka baarlamaanka kulanka baarlamaanka ee maanta loo balansanaa ayaa xildhibaanada iska soo horjeeda waxa ay kala wateen laba ajende waxaana laga cabsi qabay in uu sababo fawdo iyo qalaalasa siyaasadeed oo wadanka horseeda waxaa dib loo furay isku socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka magaalada Muqdisho kadib markii uu baaqday shirkii baarlamaanka Soomaaliya warkaasi waxa inoo haya Sidiiq Maxamed Kilaas waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka iyo gaadiidka qaybo ka mid ah jidadka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho kadib markii ay saaka bulshadu kuwa bareysatay jidadka oo gabi ahaanba xiran ciidamo isugu jira kuwa militariga booliska iyo nabad sugidda ayaa xalay la dhigay qaybo ciidamo isugu jira kuwa militariga booliska iyo nabad sugidda ayaa xalay la dhigay qaybo ka mid ah isgoosyada ugu muhiimsan ee caasimadda kuwa oo si weyn ula socday dhaqdhaqaaqa iyo nabadgelyada guud ahaan magaalada foojignaanta ciidamada ayaa lala xiriirinayay kulan maanta la filayay in xarunta golaha shacabka ay ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka hase ahaatee uu u baaqday codsi ka yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya markii uu soo baxay warka ku saabsan in dib loo dhigay kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa la arkayay qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan jidadka ugu muhiimsan oo loo fasaxayo in dadka iyo gaadiidku isticmaalaan dadweynaha reer Muqdisho ayaa xalay ku sii talagalay in maanta magaaladu kala xirnaan doonto iyadoo qof walba uu qorshihiisu ahaa in uu balsi dhow ula socdo waxa ka soo yeeri doona xarunta golaha shacabka markay isugu tagaan xildhibaanada waxaa sii kordhaya xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo wadamada reer galbeedka iyadoo dawladda Ruushku ay ku dhawaaqday inay masaafurinayso diblomaasiyiin horle oo dhashay boqortooyada Ingiriiska warkaasi waxa inoo haya Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi ruushka ayaa ku wargeliyay Britain in wadar ahaan in ka badan 50 ka mid ah diblomaasiyiinteeda ay tahay inay ka tagaan dalkaasi iyadoo uu sii xoogeysanayo muranka ka dhashay sumayntii UK loogu geystay jaajuus hore oo ruushka u dhashay iyo gabadhiisa Moscow ayaa horay u cayrisay 23 diblomaasiyiin ah oo u dhashay Britain kadib markii London ay ka amartay inay 23 diblomaasiyiin ruush ah inay dalkeeda ka baxaan balse hadda ruushka ayaa ku adkaysanaya in diblomaasiyiin dheeraad ah oo Britain u dhashay ay tahay inay baxaan wuxuu ruushku qabaa in tirada diblomaasiyiinta labada dal midba kan kale ka jooga inay isku mid noqdaan tan ayaa la micno ah in ugu yaraan 27 saraakiil kale oo UK u dhashay gurigooda loo diri doono dowladda Britain ayaa ku eedeysay ruushka inuu ka danbeeyay weerarkii sunta neerfaha waxyeelaysa ee loo adeegeystay Sergio Skripal iyo gabadhiisa Yulia hase yeeshee Moscow way dafirtay eedeymahaasi maxkamad racfaan oo ku taala Talyaaniga ayaa amartay in magdhow la siiyo nin Soomaaliya oo ku xirnaa wadankaasi in muddo kadib markii lagu waayay dambigii loo heestay waxa inoo eegaya Gorod Maxamed Cali maxkamadda racfaanka ee ku taala magaalada Bareego ee dalka Talyaaniga ayaa Xaashi Cumar Xasan oo ah muwaadin Soomaaliyeed lacag u xukuntay gaaraysa 3.181 milyan oo euro ah kadib markii muddo sanooyin ah si qalad ah ugu xirnaa xabsi ku yaala dalka Talyaaniga Xaashi Cumar ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii wariya Raleria Albi iyo sawirqaadaheeda Milan oo dil loogu geystay magaalada Muqdisho sanadkii 1994 maxkamadda ayaa sheegtay in lacagtan ay tahay magdhow maadaama uu sanado badan u xirnaa isagoo eedeysana ah bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 ayaa Xaashi laga sii daayay xabsiga kadib markii qareenadii u dooday ay ku guuleysteen in dambigii lagu haystay lagu waayay Albi oo 33 jir ahayd iyo Milan oo 40 jir ah ayaa gaari ay wateen oo maraya bartamaha magaalada Muqdisho waxa weerar ku qaaday Malaysia hubeysan 20kii bishii Maars ee sanadkii 1994 Gorod Maxamed Cali wararka fiid wanaagsan Nairobi ugu dambeyntiina Malala Yousafzai ayaa dib ugu laabatay tuuladii ay ku dhalatay oo ay dhaawaca ugu geysteen kooxda Taliban 6 sano ka hor Malala Yousafzai oo ah gabadha ugu daada yar dunida ee haysata abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ayaa dib ugu laabatay deegaankii ay ku dhalatay ee dalka Pakistan markii ugu horeysay tan iyo markii Malaysia ka tirsan kooxda Taliban ay xabad ku dhifteen sida ay sheegeen lamaha ammaanka dalkaasi
Marwo Yuusuf Zaay oo 20 sano jir ah ayaa rag hubeysanay ka toogtay madaxa sanadkii 2012 xilligaas oo ay u ololeysay horumarinta waxbarashada gabdhaha. gobolka qoyskeeda Iswaad ayaa mar ahaan jiray goob ay ku xoogay yihiin maleeshiyada Taliban waxayna ku weerareen iyadoo la socotay bas ay saarnaayeen caruur iskuuley ah. ma aysan caddayn inay booqan doonto iyo in kale deegaankaasi qoyskeeda sabab la xiriira xaaladaha amniga ee deegaankaasi. wadooyinka ayaa la xiray xilli Malaala ay ku wajahnay deegaankii ay ku dhalatay maalintii Khamiista waxaa la shaaciyay in Mrs Yuusuf Zaay ay ka duushay dalka UK iyada oo gaartay Pakistan markii ugu horeysay tan iyo markii weerarka loo geystay. Mrs Yuusuf Zaay ayaa ka jeedisay khudbad xamaasad leh xafiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan ee Islamabad. diyaarad siday Mrs Yuusuf Zaay ayaa ka degtay meel aan ka fogeyn deegaanka qoyskeeda ee Mingora maanta oo Sabti ah waxaana aad loo adkeeyay amniga deegaankaasi. safarkeeda Pakistan ayaa la filayaa inuu qaato 4 maalin. saraakiisha kooxda maalgelisa barnaamijkeeda Malaala ayaa ku wehelinaya safarka sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga dalkaasi. Malaala ayaa noqotay gabadh u ololeysa waxbarashada gabdhaha xilli ay ka mamnuuceen inay ka wado gudaha Pakistan kooxda Taliban waxayna si kama ah ugu weerareen iyada oo bas la saarneed arday iskuuley ah bishii Oktoobar sanadkii 2012. Malaala ayaa si dhaawaceedii xilligaasi waxa uu si weyn u soo jiitay dareenka beesha caalamka. Mrs Malaala ayaa waxaa lagu dabiibay dhaawaceeda isbitaal military oo ku yaala gudaha Pakistan kadibna waxaa loo gudbiyay dalka UK halkaas oo ay ku qaadatay dawooyin dheeraad ah haatan ay kula nooshahay qoyskeeda. dagaalyahanada Taliban ee Pakistan ayaa sheegay in isla waqtigaasi inay madaxa ka toogteen maadaama ay taabacsan tahay reer galbeedka ayna ku faafinaysay deegaanka Bashkun dhaqanka reer galbeedka. warkii waad kala socoteen janalka Qariij qodintaasi ayuu nooga egyahay tan iyo intaynu ku kulmayno warkeena kan xiga waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo baxda Qariij qod sidaas iyo nabadgelyo.